daawadayaal kusoo dhawaada saxafi filim su'aal aad ka dhigtaan barnaamijyada aynu kaga hadalno arrimaha Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa jilaaga caanka ah Sanjay Dutt oo kamid ah aktarada ugu caansan ee shirkadda Bollywoodka haatan tiyaatarada uu saaran yahay filimka taariikhdiisa ee Sanju oo uu daadinayay jilaaga daada yar ee Ranbir Kapoor. filimka isagoo aan isbuuci labaad dhamaysanba waxa uu noqday filim blockbuster ah. haddaba filimkaasi director-ka waday ee Raj Kumar Hirani ayaa waxa uu ka tagay 11 qodob oo muhiim ahaa oo dad badani ay la yaabeen markii laga reebay taariikhda jilaaga caanka ee Sanjay Dutt. haddaba waxaa kamid ah 11 kan dhacdo ee la yaab kale oo taariikhda jilaaga Sanjay Dutt uu si xaqiiqa ama badhaba u sameeyay. maxay tahay sababta uu uga reebay director Raj Kumar Hirani? haddaba waxaa kamid ah haddaynu soo qaadano qodobka koowaad waa Tina Munim oo ahayd gabadhii koowaad ee actor-kan la jishay filimkiisa koowaad ee Rocky. waxaana la sheegay gabadhaasi Tina in uu jacayl xad-dhaaf u qaaday. waxaa dhacday 80-aadkii in jilaagan cid fiirisa Tina Munim uu gacanta u qaadi jiray oo waxaaba la sheegayba in dad badani uu gacmaha ka jajabiyay qaarna ilkaha ka tuuray markii ay eegeen Tina Munim iyo isaga oo wada socda. waxaa la sheegay jacaylka uu qabay jilaagan caanka ee Sanjay Dutt inuu ahaa xad-dhaaf actaradan Tina Munim. ugu dambeynna waxaa kamid ah dhacdooyinka uu sameeyay waqtigii iyo waayihii uu xilligaasi jacaylka la jilayay actor-kan caanka Rajesh Khanna oo waqtigaasi filim la sameeyay kana mid ah xidigihii ugu caansanaa shirkadda Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya inuu inta gurigiisa ugu tagay amaba stuudiyaha uu ku sameeyo filimada uu ugu hanjabay. taasina waxa ay keentay ugu dambeyn in Tina Munim ay go'aan cad ka qaadato jilaagan caanka ee Sanjay Dutt. waxaa la sheegay waqtiga ugu xumaa ee uu aadka daraagiska u isticmaalay jilaagan caanka ee Sanjay Dutt in ay ahayd waqtigii Tina Munim ay kala tageen. waxaana la sheegay in xitaa markii xiriirkooda uu dhammaaday in jilaaga caanka ee Sanjay Dutt uu gurigiisa soo galay kadibna uu xabada riday daaqadiha gurigiisana uu jajabiyay kala tagii iyo murugadii uu ka qaaday. sidoo kale waxaa ka hadlay arintaasi sheegay Gulshan Grover iyo Rishi Kapoor oo waxaa lagu daabacay buugga la magac baxay Kula oo uu qoray jilaaga caanka ee Rishi Kapoor. waxa uu yiri markii ay kala tageen Sanjay Dutt iyo Tina Munim waxa ay u ahayd Sanjay Dutt habeen madow. waxaan arkay buu yiri isaga oo aad daraagas u isticmaalay xabadana ridaya cid kasta oo la hadashana u gacan qaadaya. haddaba waxaa kamid ah dhacdooyinka laga reebay filimka sidoo kale arooskii uu guursaday Rija Sharma. haddaba gabadhaasi Rija Sharma waxaa la sheegay in xiriirkii isaga iyo Rija Sharma ay sabab u ahayd jilaaga caanka ee Madhuri Dixit. waxaa la sheegay in gabadha la dhalatay Rija Sharma ay soo aaday actaradan Madhuri Dixit kadibna ay xitaa isu gacan qaadi gaareen. ugu dambeynna waxaa warkaasi lagu soo gabagabeeyay oo ay gabadha la dhalatay Rija Sharma ku waanisay actarada Madhuri Dixit. waxaa tahay qof wanaagsan, waxaa tahay qof sumcad leh. ninka aniga walaashay oo xanuunsan oo kansar qabta sidan u dayacay adiga bari ka maalin xaguu ku geyn karaa. waa ay waanisay. ugu dambeynna waxaa la sheegay in Madhuri Dixit go'aanka ah inay jilaagan caanka ee Sanjay Dutt nolosha la wadaagto waxaa bedelay gabadha la dhalatay Rija Sharma oo ahayd dumaashada Sanjay Dutt. ugu dambeynna markuu jilaagan xabsiga galay go'aan cad ayay ka qaadatay actarada Madhuri Dixit oo waaba ay joojisay xiriirkina waa ay u jartay. taasina waxaa sabab u ahaa baa la sheegaa waanadii iyo dagaalkii ay ku soo qaaday gabadha la dhalatay Rija Sharma oo ahayd xaaskii u dhashay jilaagan caanka gabadha uu dhalay ee la yiraahdo Trishala Dutt. haddaba waxaa kamid ah dhacdooyinka la yaab kale oo sidoo kale sameeyay Riya Pilla oo ahayd xaasaskiisii xaas kamid ah. taariikhdaba laguma soo xusinba oo filimkanba laguma darin Riya Pilla inkastoo lagu soo qaatay Rija Sharma iyo xaaskiisa Mayata Dutt. waxaana la sheegay sidoo kale in ay sababta u ahayd kala tagga asaga iyo Riya Pilla Nadia Durrani gabadha la yiraahdo oo ahayd gabar Pakistaaniyada oo markuu xabsiga ka soo baxay kadib uu xiriir la sameeyay. Riya Pilla ayaa waxa ay ahayd qof aad iyo aad u wanaagsan intuu xabsiga ku jirana si wanaagsan oo la macaamilaysay saygeeda. waxaana la sheegay in markii ay maqashay xiriir inay uu la leeyahay jilaagan Nadia Durrani in ay la hadashay kadibna uu halkaasi dagaalka Nadia Durrani oo ahayd gabar reer Pakistaaniya iyo Sanjay Dutt uu ka qarxay. ugu dambeynna sanadkii 2005 ayaa dagaalka Riya Pilla iyo Sanjay Dutt uu soo bilowday. 2008dina waxaa gabagaboobay furiinkooda. haddaba sidoo kale waxyaabaha laga reebay filimkan waxaa kamid ah Trishala Dutt oo ah gabadha curadda ee uu dhalay jilaagan. filimkan laguma soo xusin halka labadiisa gabdhood oo kalena lagu xusay. waxaana la sheegay in markii koowaad oo la heshiisiiyey Sanjay Dutt iyo gabadhiisa xitaa markii uu barayay gabdhaha uu isaga dhalay in aysan la hadlin. ugu dambeynna muddo badan kadib ayay labadooda heshiiyeen. maxayse tahay sababta filimkan Sanju looga reebay gabadhiisa oo ah gabadha curadda uu dhalay jilaagan? sidoo kale waxaa kamid ah dhacdooyinka la yaab kale ee Raj Kumar Hirani uu ka reebay ninka lagu magacaabo Bal Thakray oo ahaa
nin aad iyo aad xubin muhiima ogaa nolosha jilaagan caanka ee Sanjay Dutt waxaana dhacday in jilaagan markii koowaad ee xabsiga laga soo sii daayay 1995 laguna soo sii daayay damaanad in cid damiinata uu ahaa Raj Thakray waxaase la yaab noqotay in jilaagan markii xabsiga laga soo sii daayay uu ahaa nin aad iyo aad daciif u ah 19 kiilo ayaa miisaankiisa isdhimay waxa uu ahaa muuqaalkiisa muuqaal aad u liita subax dambe ayaa jaraa'idka boga koowaad waxaa lagu soo daabacay isaga iyo Raj Thakray oo garbaha haysta oo waliba dhoola cadeynaya halka aabihii Sunil Dutt iyo Rajendra Kumar oo taqaanaan Faris oo ahaa labadaba dadkii markaasi la socday oo dhinac taagan ha yeeshee saxaafadda waxay aad u buubuunisay Raj Thakray oo ahaa qofkii soo damiintay halkaasna waxaa ku luntay sumcadda jilaagan caanka aabihiis Sunil Dutt oo dad badani markaasi ay isweydiinayeen maxay tahay sababta uu Raj Thakray markaasi jilaagan caanka uu aadka ugu qiimeynayay amaba saxaafadda ay ugu buubuuninaysay Sunil Dutt ayaa gabay hawshii markaasi uu qaban lahaa wiilkiisa mise waxaa markaasi ka dambeeyay sheekadan iyo saxaafadda inay buubuuniso Raj Thakray oo ahaa shaqsigii soo dambeeyay inkastoo shaqsigan damaanada uu ku soo dambeeyay Sanjay Dutt uu ka dambeeyay Sunil Dutt oo ahaa aabaha dhalay Sanjay Dutt taariikhdana laguma soo qaadan oo filimka laguma darin haddaba tan la yaab kale waxa ay ahayd oo filimka laga reebay in jilaagan caanka ee Sanjay Dutt gabdho badan oo gaaraya ilaa 300 oo gabdhood oo uu waqtigii dhalinyaronimadiisa uu waqti badan la soo qaatay waxyaabaha ugu badan oo waqtigaasi uu ku beerjilicsanayay in ay ahayd markii uu khamriga ka dharga kadib uu dhihi jiray in Maria waa aan baxaynaaye intuu gaari ku soo qaaday ayuu wuxuu geyn jiray qabriga hooyadiis ee Negris waxaana la sheegay in uu markaasi uga sheekeyn jiray sheekooyin uu markaasi kala kulmay hooyadiis iyo xiisaha uu qabay gabdho badan ayuu ku beerjilicsaday isaga oo markaasina kadibna danaha uu ka lahaa ee Hasaawe ka dhameysan jiray waxaa la sheegay in gabdho badani ay sheegeen xitaa qabriga uu geeyay in aysan ahayn qabriga hooyadiis ee Negris oo xitaa qabuuro kala geyn jiray waxaana la sheegaa dhacdooyinkaasi in uu caan ku ahaa jilaagan 80maadkii isaga oo qof waliba uu isweydiin jiray caawatan uu wada Sanjay Dutt ma qabrigii hooyadii ayuu dul geyn doonaa sidoo waxa uu doono uga sameeysto haddaba dhacdooyinkaasi oo dhan laguma soo darin filimkan Sanju oo ah filim blockbuster maadaama filimkan taariikhda jilaaga caanka ee Sanjay Dutt lagu koobayay maxay tahay sababaha keenay dhacdooyinkan la yaab kale ee saameynta ku lahaa jilaagan taariikhdiisa waxa uu Raj Kumar Hirani uga reebay buugga laga qoray jilaagan caanka ee Sanjay Dutt iyo taariikhdiisa iyo waayihiisa nololeed waxyaabahan oo dhan waa ay ku qoran yihiin inkastoo jilaagan caanka ee Sanjay Dutt uu marar badan muran ka keenay sababaha loogu daabacay waxaana ay sheegeen dadkii buuggaasi daabacay in uu ahaa heshiis ay dhigteen oo ay wada galeen iyaga iyo Sanjay Dutt oo uusan diidi karin sharciyanna ay u leeyihiin in ay daabacaan sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha la yaab kale ee laga reebay filimkan caanka waa Sanjay Gupta oo ahaa director weyn oo filimo badan oo caana u sameeyay jilaagan waxaana ka mid ah filimadaasi Aatish sidoo kale waxaa ka mid ah Kanti sidoo kale waxaa ka mid ah Musafir iyo Zinda maxay tahay sababta keentay in jilaagan iyo directorka filimada wanaagsan u sameeyay ay isku dhacaan waxaa ka hadlay arintaasi Sanjay Gupta oo sheegay in cidda ka dambaysa ay ahayd isku dhaca isaga iyo Sanjay Dutt Dharma Oberoi oo waqtigaasi ahaa ninka xisaabaadka iyo maamulka u hayay intuusan xabsiga gelin jilaagan caanka ee Sanjay Dutt waxa uu sheegay isku dirka iyo ruufiyaanimada cidda ka shaqeysay aniga iyo Sanjay Dutt inuu ahaa Dharma Oberoi oo waxyaabo qaldan u gudbiyay waxa uu yiri jilaagan markuu xabsiga ka soo noqday kadib waxaan arkay isaga oo iga gaabsaday oo aanan marnaba xitaa ila hadlaynin sidoo kale waxaa ka mid ah taariikhaha la yaab kale ee jilaagan uu sameeyay intii uusan xabsiga gelin ka hor xiriirkii isaga iyo Underworld oo ahaa maafiyada ugu khatarsaneyd iyo xiriiradii uu la sameeyay dadka xilligaasi madaxda ka ahaa daawadayaal hal barnaamij oo kaliya kuma soo wada koobi karna ee barnaamijyada kale ee ka bixi doona Saxafi Films ayaad kaga bogan doontaan taariikhda jilaagan caanka ee Sanjay Dutt iyo taariikhihii qaybihii ugu muhiimsanaa oo laga rabay filimka Sanju oo haatan tiyaatarada dalkaasi India saaran oo uu jilaag ka yahay ama matalay taariikhda jilaagan aktarka da'da yar ee Ranbir Kapoor oo ka mid ah aktarada ugu jiliinka wanaagsan filimkan markii la daawaday waxaa la sheegay dadkii daawaday in qaab jiliinka uu keenay jilaagan da'da yar ee Ranbir Kapoor dad badani ay la wada dhaceen waxaadna moodaa in Sanjay Dutt uu yahay qofka filimka dhigaya aktarkan ayaa waxa uu qaatay tababar aad u badan iyo waqti badanna siiyay si uu u keeni lahaa dabeecadaha gaarka ah iyo dhaqamadii jilaagan uu lahaa waayihiisii uu yaraanta fanka ku jiray iyo taariikhda caanka uu ku noqday inkastoo la sheego in filimkan laga reebay oo laga ilaaliyay waayihii madooba iyo mugdiga ahaa ee jilaagan caanka ee Sanjay Dutt daba daawadayaal intaas ayaynu qaybta koowaad ee taariikhdii madoobayd
ee jilaagan caanka ee sanduud lagana reebay filimkiisa sanjuu kusoo koobaynaa. haddaba haddii aadan ka mid ahayn asxaabta ku xiran saxafi films, ugu horreynba barnaamijkan like saar, kadibna subscribe ku qaba saxafi films, kadibna taaba gambaleelka si barnaamijyada ka baxa saxafi si ay joogto kuugu noqdaan. fikirka aad qabtid waxaad nagula wadaagi kartaan qaybta commentiska ee afkaartiina loogu talagalay ee saxafi films. inagoo isku duuban oo aabahda saxafina intaynu barnaamijkan lamida ku kulmayno daawadayaal dhammaanteen waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.